ميزانية الدولة الدحية لaba kun iyo 26 waxa weeye 2 trilyan 866 bilyan 183 milyan 568 kun iyo 109 shilin oo Soomaaliland taasoo ka noqonaysa saamiga miisaaniyadda boqolkiiba 63 miisaaniyadda dowladda hoose waxay dhan tahay 563 bilyan 771 milyan 919 kun 117 shilin oo ka noqonaysa boqolkiiba 12 mashaariicda banka adduunka iyo banka horumarinta 800 milyan 713 kun 466 shilin taasoo ka noqonaysa boqolkiiba 17 miisaaniyadda hay'adaha macaashka sameeya sida wakaaladda biyaha banka dhexe iyana waxay dhan tahay 354 milyan 290 milyan iyo 65 kun 130 shilin oo ka noqonaysa boqolkiiba 8 sida ay ku tahay boqolkiiba 100 miisaaniyaddii qarankan ee 2026 mudanayaal markaynu gaar u eegno daraska miisaaniyadda dowladda dhexe